السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرقدونك قولها بارلمانكا مدنياشا قولها بارلمانكا قدوميها محكمة السنة حير ليها قود حبناها قولها وزيرها تلياشا عيدمada qalabka sida shacabka Soomaaliland gudo iyo dibadda meel joogaba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدب دستورك wuxuu jireynaya in sanad walba shirka golaha baarlamaanka shirkiisa oo horeeya markay furmaan in madaxweynaha ay waajib ku tahay inuu sanadka dalka ka warbixiyo wixii soo maray iyo waxa jira. marka mowduuca maanta waxa ku leeyahay khudbadeeni sanaadka ahayd oo dalka xaaladiisa wixii uu soo maray sanadka iyo mustaqbalka waxay bogsanayno inta aan gaari karo ayaan ka hadlo. mudane yareey marweyn hal gandheer kadib oo ka bilaabmay caaladii ka dhalatay dawladdii lagu midoobay ee la dhisay bishii Juulaay 1960 oo soo maray marxalado badan wuxuu ahaa halgan culus oo dhiig iyo maal iyo nafba loo huray oo dadka reer Somaliland ay kaga dhinteen kumaan qof oo ka badan maanta inta qasal laga sheegayo sideedii gudagalkii dagaalkii lagula dagaalamay dawladdiisii aad bare in laga xoreeyo Somaliland waxa ku dhintay 3 bilood dagaalkaas socday iyo maalmihii inta ay sheegtay cimilada quraahay raxaysa 50,000 oo qof oo shacab oo aan rumaysnay laba kun iyo kowdii guddi jimcada quraahay ka dhaxaysa oo Hargeysa yimid oo dalka baaray xawaalo wadareedyo iyo waraysi badan waxa uu soo saaray inta dhimatay inay tahay 200,000 oo shacab waxa qaxay oo qaxooti noqday dadka Somaliland intiisii badnayd 70% ayaa noqday wax qurbaha daafaha adduunka u qaxay iyo wax xiriir qaxooti looga sameeyay Ethiopia. halganka kadib wuxuu ku soo gabagaboobay sanadkii 1990 markii Somaliland dalkeeda dib ugu xoreysay dawladdii Siyaadar. 3 sano kadib oo maanta aynu ka joogno dalkeena dib u xoreyntiisii Somaliland waxay soo martay marxalado kala duwan oo mid waliba waayaheeda lahayd laakiin wuxuu ku soo dhamaaday 3 sano oo tirsanaa maanta guud ahaan inaynu gaadhay guulo waaweyn oo ay ka mid tahay nabadgelyada Ilaahay nasiiyay dadkeena ku fara adeegay dawlad dhis aynu dawladdii dhisanay iyadoo aan caalamku waxba inooga sheeganayn waayo kaalmada nasiiya waxa weeye ta la yiraahdo kaalmada degdega ah ee taageero dhaqaale la inama siin. marka dadka Soomaaliland waxay dhisteen dawlad hay'adaheed leeyihiin waxay samaysteen dastuur jeexaya in dalka lagu dhaqo dimuqraadiyad waxay doorteen 3 gole oo dawladda hoose ah oo hal qof iyo hal cod ah 2 gole wakiilada baarlamaanka oo hal qof iyo hal cod ah iyo 5 madaxweyne oo si nabada la isugu wareejiyay oo 3 kamid ah lagu doortay codka dadweynaha hal qof iyo hal cod arrintaas soo naadir ku ah dawladaha soo koraya gaar ahaan Afrika iyo waliba geeska aynu ku noolnahay waana Ilaahay mahadi waa wax Ilaahay loogu mahadiyaa inay Soomaaliland iyadoo isku tashatay inta samaysay waxaa jira hawsha ugu culus ay Soomaaliland doonaysay iyadoo inta soo dhan samaysay oo sharciyan iyo siyaasiyan ku mutaysatay in ay ka hesho aqoonsiga dhammaan bulshada caalamka meel ay degan yihiinba
haddana waxaa muuqata in dowlado badan ay ka cagajiidayaan aqoonsiga Somaliland oo ay u badan yihiin dowladaha Afrikaana oo iyagu aan ku dhaqmin hal qof iyo hal cod doorashadooda waxaa intaa dheer in dowladaha dimuqraadiyadda ku dhaqma dadkana ku dhiirigeliya badankoodu ama kuwa ugu tunka weyn ay had iyo jeer iska indhatiraan habkaa siyaasiga ee Somaliland qaadatay ee iyada oo dhaqaalaheeduna aanu buurayn qaarad ama gobol aan xasiloonayn iyadu xasiloon oo gobol ay ku yar tahay doorashada hal qof iyo hal cod ay ku yar yahay ayuu fulisay haddana dowladaha ugu tunka weyn dimuqraadiyaddu inta badan waxay ku riixaan inay Somaliland ay ka matalaan fagaarayaasha caalamiga ah dad gaaraya 100 qof nin ay doorteen oo laga yaabo markay dooreen badankoodu inay wajigiisu xidhnaa oo aan cidna ka matalayn Somaliland ayaa had iyo jeer yiraahda anaa ku matala golayaasha caalamka dowladaha waaweyn waa aqoonsan yihiin taasi waxay muujinaysaa mararka in badan laba wajiilanimada dowladaha qaarkood ay ku dhaqmaan waxaan soo hubaa oo ku kalsoonahay in dhawaan bishu hortooda iman doorto oo la arki doono Somaliland oo la aqoonsaday oo qaybaha ka qaatay inta haddii aan ka gudbo oo danteedu hoose u soo noqdo xukuumadii kulmiye ee kala dambeeyay ee shacabku doortay waxa ay dagaal badan u galeen in ay furiyaan oo kaga dhabeeyaan barnaamijkii ay ummadda u ballan qaadeen taana intiisii badnayd way fushay waxaanad ka arkaysaa inta ay korodhay miisaaniyada dowladdu marka laga soo bilaabo sanadkii 2010 ilaa 2023 maanta aynu joogno oo ay korodhay boqolkiiba 780% boqolkiiba marka loo eego 2010 miisaaniyada qaranku waxay ahayd 285 bilyan maanta 2023 waxay maraysaa 2 trilyan iyo badh taasoo noqonaysa in boqolkiiba 700 ay kordhay taasina waxay ku timid aragtida ku dhisan in mudnaanta la siiyo horumarka dadweynaha waayo haddii aan dadku dhaqaalahayn oo dowladdu qaybinaynin wuxuu leeyahay dhibaatooyin xukuumadaha kulmiye tan maanta iyo tii horeba mudnaanta koobaad ee dhaqaalaha waxay ka dhigeen amniga dalka iyo difaaciisa taasoo ugu wacan tahay gobolkeenu dugannahay oo xasarad badan ka socdaan caalamka oo maanta ay ka socdaan dagaallo badan iyo meelo badan Somaliland oo cadow badan ka soo horjeeda aqoonsigeeda oo farafarayn badan iyo gujogujeen uu hayo mar walba waxa laga daryeelaa ama loogu horeysiyaa hay'adaha ammaanka ayaa loo horeysiyaa dhaqaalaha ama miisaaniyada dalka waxa kale oo xoog la saaray deganaanshaha dhaqaalaha dalka waayo haddii dhaqaaluhu khalkhalo loo heli maayo xal inta la dejinayo culays badan ay ku qaadanaysaa marka waxaa ka dhacaya adduunka ee dhibaatooyin leh dowladdu waxay xoog saartay inuu xasiloonaado shilinka Somaliland oo sicir barka la dayacdo in suuqa xorta ah ee dhaqaaluhu uu deganaado taasoo guul weyn laga gaaray tayeynta nidaamka dowladnimo oo ugu horeyso in la helo heshiis siyaasadeed oo ummaddu ku wada dhaqanto oo loogu hoggaansamo dastuurka iyo sharciyada dalka dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha horumarinta adeegyada aasaasiga sida waxbarashada biyaha iyo caafimaadka intaa haddii loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay in dhaqaalaha sidii loo soo xoojin lahaa iyo sida loogu qaybin lahaa ummadda iyadana la hufo oo sharciyo lagu soo ururiyo sharciyada lagu kharash gareynayo iyo sinaanta dadka saddexda qodob siyaasadii lagu dhigi lahaa
sharciyada loo sameyn lahaa iyadana in xoogga la saaro sida aad la wada socotaan kobaca dhaqaalaha wuxuu wax weyn ka taraa horumarka dalka xukuumad ahaan tan maanta aan garwaanka ka ahay iyo tii ka horreysayba ay xoog saareen sidii ay u habeyn lahaayeen ee ugu habboon ee cashuurta dadku ay bixiyaan loogu sameeyo nidaam lagu ilaaliyo kow nidaam lagu kharash gareeyo laba iyo nidaamka ummadda loogu qaybinayo kuwaasoo laga sameeyey shuruuc fara badan oo ku qoran halka aad ka akhrin kartaan laakiin imika aanan tafaasiishooda gelin markaynu eegno dhaqaalaha dalka 2010kii wuxuu ahaa intii aan horada ku sheegay maantana wuxuu marayaa halkaa 2017kii wuxuu ahaa 1 trilyan iyo badh 2023kii wuxuu yahay oo maanta uu joogaa 2 trilyan iyo badh marka 7 sanaba dowladihii kulmiye mid waliba ugu yaraan 1 trilyan ayay ku kordhinaysay dhaqaalaha dalka shaqaaleynta dadka shaqaalaha waxaa la sameeyey barnaamijyo lagu hubinayo ama shuruuc in dadku u sinaado 2 meelood oo muhiim ah mid waxa weeye shaqaaleynta iyo shaqasiinta dadka midna waxa weeye qandaraasyada miisaaniyadda dowladda waxa ka baxaya labadaba in loo sinaado shaqaalaha dowladda wuxuu maanta taagan yahay 26,917 sanadkii 2010kii markii kulmiya uu qabtay wuxuu ahaa 9,551 shaqaalaha dowladda sanadkii 2017kii wuxuu ahaa 14,850 maanta 2023 sanadkii teeba ka hadlaya wali sanadkan 4 maynaan diyaarintiisii waxa uu marayaa 26,000 917 taasi waxay noqonaysaa kororka shaqaaluhu inta uu kordhay 14 sano iyo dowladda intii ay kordhisay waxaa la sameeyey xeerkii iyo miisaaniyaddii howlgabka shaqaalaha iyo ciidamada oo haddii alla yidhaahdo dhowaan laga hirgelin doono waxaana u dhiman oo qura sidii loo tirakoobi lahaa oo loo hubin lahaa mar labaad waktigan aynu joogno inta howlgaba shaqaale iyo ciidamo waxaa la sameeyey xeerar fara badan oo howlaha lama qaban kara haddii aan la samayn xeerar iyo habraacyo iyo nidaamyo masalan maaliyadoo kale waxaa laga yaabaa in 14 sano ay samaysay in ka badan dhowr iyo 17 ku dhowaad ama habraaca ama sharciga si loo gaaro halka la doonayo horumarka dadka inta la gaarsiinayo waxaa la sameeyey 47 xeer marka laga soo bilaabo 2010kii ilaa halkaynu maanta joogno xeerarka badankooda waxay hirgaleen intii ka horreysay golaha wakiilada ee cusub aan la dooran golahana la doortay ee golaha wakiilada oo dad badan soo doortay oo la xulay oo sharaf la ah 3 sano ay joogaan waxay ansixiyeen hal xeer oo kaliya kaabayaasha dhaqaalaha waxaynu ugu hormarinaynaa maanta oo adduunkana laga yaaban yahay ama la bogaadinaya oo Soomaaliland magac weyn u keentay hawsha ay qabtaan dekedda Soomaaliland ee berbera 400 waxa la tartansiiyey oo caalamka baanka adduunka uu eegay hufnaanta degdega
nabadgelyada iyo siday hawshu ugu wacan tahay maraakiibta laga dejinayo containers in ka badan 400 oo dawladood ayuu baanka adduunku markuu dekedaha caalamka oo dhan eegay soo xulay waxaa nasiib wanaaga in dekeda Berbera ay gashay kaalinta 106 oo ay noqotay hoggaanka u haysa horumadu tahay hawl wacanida Afrikada ka hooseysa Sahara waxay intaa u dheer dekeda Berbera hadda dhererkeedu waa 150 mitir dhawaana waxaa lagu dari doonaa oo bilaabi doonaa 600 mitir oo kale dhererkeedu waa 17 mitir oo badda dhererka ay ku taagantay waxa ku soo xiran kara maraakiibta qaada ugu culus adduunka oo qaada 18,000 oo container oo 20 tuula ayay ka shaqeynaysaa dejin kartaa rarna kartaa Berbera maanta waxaan ku rajo weynahay marka la dhameeyo 600 kala dhamaada inay Berbera sanadkii roogi karto dejin karta ama rari karto 2 milyan oo container oo kuwa waaweyn 20 tuula waxa inta ku soo kornay oo kamid hawsheeda lagu amaanayo dhoomaha shidaalka qaada ee Berbera oo hadda dhawaa sanadkan la furay oo si casri ah 7 dhoomood oo wada yaala oo nooc kasta oo la kula oo la baahan yahay in haamaha Berbera la geeyo mid waliba markabka badda 2 kiiloomitir ka soo qaadayso oo ay ku shubayso bariga haamaha salka yaala 7 dhoomood oo mid ay reserve tahay 6 kale jet diyaaradaha gaaska wax lagu kariyo naafto petrol dieselka culus tu kasta oo loo baahdo markabka meesha imanayana waa kuwa ugu waaweyn ee 87 tan markabka ah ayuu xajinaya ka soo qaaday waana adeega ay u baahan yihiin dalalka waaweyn ee Afrika ee land local badda ay ka xiran tahay oo u noqonaya adeeg aad iyo aad u fudud bas dhumaha waxa maalgeliyay shirkad Somaliland leedahay lacagta u baxdayna waa deyn ay dawladdu u celinayso ay ka siinayso qaranku u celinayo ninkii maalgeliyay adeega kaabayaasha dhaqaalaha haddaynu dekeda shaqeeyo dekeda waxa la mid ah garoomada iyo diyaaradaha Somaliland waa markii ugu horeysay waxay bilowday aasaaska Somaliland Airlines si loo bilaabo Somaliland Airlines waxay u baahan tahay hawl badan marka hore garoonkii waa hayna wixii kale oo lagu qabanayna waan hayna waxaan u baahanahay inaynu keeno dadkii aqoonta u lahaa diyaaradaha farsamo yaqaanadii dowliyayaashii hagayaashii hagi lahaa diyaaradaha kala dejintooda iyo staafkii kale ka shaqeyn lahaa waa in la tababaraa oo ay jiraan dad diyaarsan oo hawsha ku qaban kara ma suurtoobaysa inaad diyaarad soo karaysato oo shaqaaluhu kale yahay oo aduuriyu kale yahay oo farsamo yaqaan kale yahay oo gabadha ka shaqeysa ma isbixinaysa in badan baa taa la tijaabiyay sidaa darteed waxaynu soo helnay oo Somaliland maanta 4 diyaaradood oo tababara ay Somaliland leedahay ayaa maanta hargeysa yahay waxaa jooga macallimiintii ku duuli lahayd ardayda ku tababari lahayd iyo farsamo yaqaanadii ka shaqeyn lahaa waxaan filayaa 7 iyo gudahood ugu badnaan 3 toddobaad in ay hirgasho diyaaradana la xidho Somaliland calankeeda laga taago macallimiintana diyaar noqoto wixii la isku noqoto ardaydii farsamo yaqaanada engineers mechanics aeronautics maxaa ku dhahdaayay farabadin ilaa 10 specialist baa shaqeeya diyaarada mid cirka hawada aroorti eega mid engineer dhulka eega dad walba intuu leeyahay ku dagaayo mid qalabka hagida ka shaqeeya dooliyihii engineerada iyo mechanics oo dhowr iyo 10 xirfado kala gaar ah
intaasoo dhan ugu yaraan waa inaynu ka tababaraa arday u diyaarsano u shaqo tagta ta kale ardayda halkan lagu tababarayo iyo kambariga tababaraya iyo macallimiintiisuba certificate-ka bixiya wuxuu noqonayaa kii Yurub ee dalkooda oo heerkiisa levelkiisa ugu hayay taasina waa tallaabo lagu dhisayo Soomaaliya kaabayaasha waxa kaloo ka mid ah wadooyinka oo aad muhiim ugu ah waliba inagu aad inoogu muhiim wadooyinka dalka laga dhisay 516 kiiloomitir waa wadooyinka laamiga ah ee dalka laga hirgeliyay 10 biriish oo casri ah oo aad u waaweyn 354 wadooyin oo ah carratuur wadooyinkaas tiradooda iyo iyagoo faahfaahsan oo idinku qoray halkan guud marka loo eego waa mashaariicda qandaraasida dawladdu bixisay labadii dawladda kulmay 438 ayay dawladda imika joogtaa mashaariicda ay bixisay ee miisaaniyadda dalka laga maalgeliyay ee shacbigu u tartamay ay tiradoodu gaaraysa lacagta ku baxday waa 996 bilyan oo shilinka Soomaaliland inta waxaan u gudbaynaa sidee looga ilaaliyay ama loo dejiyo suuqa dhaqaalaha in aanu suuqa khalkhalin sicir bararku xaaliga goosan aad dowladda dagaalamo ama aan ugu hooseeyo mar walba dowladaha bijaarka nahay waa ka ugu hooseeya iyada oo ay saameyn taban ku yeelatay xaaladihii dalka soo maray ee caalamkana saameynayay oo uu ka mid yahay COVID-19 oo adduunka oo dhan dhaqaalihiisa iyo caafimaadkiisa hoos u riday iyadoo ay ka mid yihiin dagaalada ka socda caalamka oo ay ka mid tahay Ukraine oo adduunka oo dhan saameysay xagga cuntada ma daqiiqda caalamka oo dhan saameysay iyadoo ay ka mid tahay dagaalka Gaza oo si gaar ah mandaqadeenu degannahay dhaqaalaheeda si taban u saameeyay oo ay ka mid tahay in maraakiibtii maraysay badda cas iyo golofka cadan labadaba dagaal ku socdo oo maraakiibtii hore ee caalamku intooda badan ay ka leexatay ay dhaqaalaha saameysay haddana wasaaradda maaliyaddu waxay ku guulaysatay inay ku ilaaliso iyo bahda dhaqaalaha oo dhan markay isku tegeen inay ilaaliyaan inaanu sicirka bararku inaga aad iyo aad inoo saameynin ee halkeeda lagu hayo xaaladda xukuumaddu waxay ku guulaysatay markii ay samaysay raacyo badan iyo dadaal badan oo lagu kaydiyo lacagta kharashka suuqa galayo had iyo jeer dawladaha waxaa dhacaa marka ay dhibaato timaado lacag badan baa suuqa lagu sii daaya oo miisaaniyadda dawladda ka baxa taasaa khalkhal gelisa laakiin waxaan ku guulaysanay duruufo kasta oo ayna soo maray oo dhacay iyo buuq kastoo dhacay in aanay dawladdu kharash suuq uu qaadi kari waayo oo khalkhalisay aanay sii daynin kana ilaalisa inay farac cadowna doqdoqeeyaan soo galaan suuqeena taasaanay iyadoo oo bahda maaliyadda oo dhan bank ganacsada wasaaradda iyo ciddii ka shaqeysa maaliyadda oo dhan baanka gaarka loo leeyahay markay isugu tageen ay ku ilaaliyeen waxaanu ku gaadhay guul aynu ku deganaano qiimaha dakhliga guud dhaqaalaha guud ee Soomaaliland marka la qiyaaso ama taajir ha ahaado ama nin dhagax jabiya lacag ka soo ahaado ama kalluun ha soo dabo ama dawladdu cashuur qaata ha ahaato dhaqaalaha guud baa la qiyaasaa ee dalka sanadkii soo gala ka waxa lagu qiyaasaa 4 bilyan oo dollar ogaada faqiir manhin marka tiradan loo eego 4 bilyan ee dollar 4 bilyan ee dollar 3 bilyan iyo 3 bilyan 300 kun iyo 30 waxaa haya suuqa xorta ah ama dadka gacantiisa ku jirta
dawladdu waxay ka haysaa oo ka maamushaa lacagta miisaaniyadda dawladda jirto oo inta u badan gaadha 300 iyo dhowr lix haddii si kale aan u dhigo dhaqaalaha guud dalka soo gala dawladdu waxay ka maamushaa haysaa miisaaniyadda dawladdu boqolkiiba 11 inta kale waxay ku jirtaa gacanta public ama ganacsatada ama baaranka la leeyahay gaarka haddaba mas'uuliyadda ugu weyn waxay fuulaysaa halka ay lacagtu taalo in dalka ay hor mariso lacagta inta laga lahaya waa inay suuqa ku wareegtaa oo la maalgeliyaa shaqo abuur iyo mashaariic dadkuna shaqo ka wada helo oo dhaqaal wada gaaro dalkuna hore ugu maro kuwa ganacsiga lacagta hayana ay faa'iido ka helaan oo iyaguna koraan ka kala ka daba koro siyaasaddaaseen u baahannahay inay lacagteena inta diyaarada lagu qaado lagu geeyay dibadaha lagu kaydin dhibaato kale keentay lacagtaas waxay noqotay wax la qaado iyo duuban oo banaanka lagu kaydiyo halka taal iyo in gudaheennii dhulkii ilaahay dadka wadasiya ka dhaxeeyay in dhulkii noqdo baankayda oo ninkii lacag haystaaba inta u badan uu dhulka galiyo dhul iibsado marka lacagtu way fadhidaa wallahi dhul baa la siiyey mar raaqayso maxaa kale keentay dadkii in yar baan u ka yeelanaysa marka shacab weynihi magaalada waa aragtay dadkeenii baa inta lagu ururiyo meelo oo bahal yar oo cadabaca loo taago ayaa la oranayaa waa barakacaya dabeetana ha dhowto ninka banaanka tagay ee waxooga yar hay'ado ka helay lagu ooday iyo in badani iyo da'yartu ma helayso meel ay degaan ama ay guri ka dhistaan dadkii ilaahay dhul ka dhaxaysiiyayna wuxuu garayaa gacanta in yar dadka taasi waxay keenaysaa in muwaadiniinta intoodii badnay mar haddaanu qolku ul haysanin meel degaba mucris la dego de waa faqriga ugu weyn lacagta waad ka kama kartaa xoolo waad ka soo noolaa kartaa laakiin haddaanu dhul balahayn de qof ma noolaanay marka lacagtii dhulkii bay gashay dadkii danyarta ahaana banaanka ku jooga oo maba iibsan karo inaguna waxaan ku faanaa magaalooyinku isugu faanaan baloorka guriga dhisan kara ee magaalo Hiblaayo imika da 60 kun maraya 100 kun 40 kun magaalo kasta oo dhaqaaqayaan ka jibni magaalo kasta inta waxa dheer wuxuu keenay khilaaf dadkii isku laayay dhulkii oo qofkii rulaan ma joogi karo laba dhulkii miyiga ahaa xoolo daaq jiray deganaana ninkii lacag haystay dhul dhan buu ootay saaro oo soo leeyahay 20 kilomitir 40 kilomitir buu odanay anaa kii kale guriyana meel degan maahay waana dhibaatooyinka inoogu badan ee dadku isugu dhacaan ee mar walba meel oraya waxa isku dilay cid bas si community isku leeyahay waana arrin mas'uuliyadaasi ay wada jir dawladda gaar ahaan labada gole baarlamaan sharcigii qabanayay dadka si wax loogu qaybinayay iyada oo la fulinayo qodobka 12aad ee dastuurka sida uu qorayo ma aha inuu dalka Soomaaliland hantida in yaroo kooban ay ku koobanto dadka intiisa badan faqriga waliba wuxuu ku soo darayaa qodobkaasi waa in laga ilaaliyaa in mi iyo magaaladu dhaqaalaha ku kala tagaan oo reemigu xaro reemigu waa dadka dhaqaalaha abuura maanta xajki waa socda xoolaha la eegayeen kuwa faraxsanayeen xoolaha la filayay reemigu baa dhaqa cashur baan ka qaadna taasi magaaladu ku noosha marka hadii reemigu xaro cidino shaqeynaysa ayr isku timid halkan magaalada noqonayna labada gole baarlamaan iyo xukuumadda tan joogta soo socota waa mas'uuliyad in la helo in qodobka 12aad ee dastuurka lagu dhaqmo si dhaqaalaheena meel lacag gaar u horumar xeerarka badankooda waa la sameeyay xeerarka badankooda way sameysay oo waxa filayaa ilaa dawladda cigaal iyo tii riyaale iyo tii silaayo mid wariba qoraalkooda waa yaala iyo nidaamintooda qaar kamidana goleyaashu way ogolaadeen intoodii badaysa goleyaasha u taala inay fuliyaan dabeetana dawladda kii soo ansixiyay ee baarlamaanka ahaa ee gacanta u soo taagay hadhowto inaanu ka hormarin sharcigii markay isaga ama nimo garanaya ku soo hagaato ta inuu dilaysa sharci socon lahayn waa taana waxaan soo jeedinayaa dhammaan xubnaha dawladda
si aynu uga baxsano in dadkeenu iskaga hor yimaado arrimaha dhulka iyo dhaqaalaha oo la kala fogaado haddaan intaa ku dhaafo arrimaha dhaqaalaha wax soo saarka beeraha maanta Somaliland inta beeraha ka shaqeysa waa 520 dhulka ku habboon in la beerto ee Somaliland waxa lagu qiyaasaa 500 oo milyan oo hektar dhulka inta leeg badankiisu waa wada beer roobaad ma aha dhul wabiyaal iyo biyo durduraa laga soo saaro biyaha beerta haddii aanay biyo jirina beer bixi mayso maanta inta beera dhulkeena waxa lagu beeraa oo ay wax ka arsaa laga ama noqoto cunto ama khudaar intooda badan waa beer roobaad roobka aynu helnaa aad u yari oo tan cimilada isbedeshay dhulka xeebaha ah sanadkii oo dhan waxa laga yaabaa inay 200 mm helaan dhulka taaga ee buuraleyda inoogu dhaadheer oo roobka badan hela ama dhulka karoodka ee kacsan ee oogadhe hawdka dhe dhulka kacsan ee siman inta u badan waxay helaan ka ugu badan 500 ilaa 600 mm oo roob aad waxaan u baahanahay technology iyo aqoontii iyo qalabkii roobka yar aynu aad u yar aynu ka baar sida aynu u herjiraan loo helaynin inaynu ka faa'iideysano oo aynu ka soo saari karno cunto inagu filan dhinac walba iyo xoolaheena waxa ay cunayaan xilkaasina wuxuu saaran yahay sharciyadu way dheeyay beero xeernimadoodu way dheeyay fulinteedu wuxuu u xiran yahay inaynu inagu kalsooni dhaqaalaha wasana isla helo oo aynu maal galino inaynu intaa ka faa'iideyno dawlado badan oo hodana oo isku filaada ayaa roobka yar hela oo iyagoo 200 xeebeen helaan ka yar hela inta u xayteen beero iyo khudaar ay ku noolaadaan soo saaray waana dalalka degan meelaha abaarta ah oo dhan oo fara badan taas waxay naga baahan tahay hawl waayo maanta adduunka nin waliba wuxuu tacadun buuna oo arkaysa Ukraine markii daaw ka dhacay dawladaha dhan oo bariga dhaxo badan oo tijaara waayay korin waxa tagtay in laga kareysto Suudaan iyo Itoobiya iyo Kongo iyo meelaha roobka badan leh in laga kareysto dhul la yiraahdo maxaa nabadgelyada cuntada food security in la beerto dhulkii laga kareysto ka carabta marka inaguna waxaan u baahanahay waynu ka faa'iido karnaa roobkaas inuu arrinta xoog saaro waliba public sector-ka dadka lacagta haya inay u jeedsadaan laba qodob oo maanta aanay Soomaali ka maarmin markasta la joogto Soomaaliland ay ka mid tahay waxa weeye in xoolihii la dhaqaaleeyo oo loo abuuro waxay cunaan iyo in biyaha yar laga faa'iideeyo oo cunto lagu filan laga soo saaro siyaasadda qaran ee maamulka beeraha qodobo badan iyo shuruuc badan baa laga soo daayay halka buugay ku taxay beeraha inta saf ku dhaafaya iyo xoolaha isku darkooda si loo dhaqaaleyn lahaa adeegga bulshada waxbarashada dawladda kulmiye iska dambeeyay halka ay ka soo qaadeen iyo halkay maanta taagantii ayuban si graaf ay ku akhriyo doon hadii ay lahayd inta kale wada ka akhrisan buug marka la isu geeyo labada dawladood ee imika iska dambeeyay kulmiye ardayda maanta joogta waxay maraysaa 40,250 way arday iskuulada dhexe iyo hoose oo arday 270 secondary wixii jooga waa 40,000 iyo 200 arday halkii ay ka soo qaadeen kolkii hore ee ay ka soo bilaabeen tiradooda sugan hadda halkan kuma qorra macallimiintu waxa weeye maanta 14,430 dugsiyada la dhisay guud ahaan
وحوي 2400 يلا 150 dugsi marka guud ahaan la isu geeyo 150 baa kor u soo dalaceen halka ay ka soo bilaabeen kulmiye afضل سودك caafimaadka miisaanada caafimaadka waxa kor loo qaaday waa imika taagan tahay 7 milyan point 3 todobaatan halkaas ay taagnayd maanta 203 waxay taagan tahay 19 milyan oo dollar kororku waa 12 milyan oo dollar ama boqolkiiba 16 waxaa intii u dhaxaysay 17 iyo 23 caafimaadka loo fidiyay dad gaaraya 8 milyan 360 kun 910 qof waxa xanuun kala duwan laga daweeyay ama laga talaalay 700 iyo 14 kun 850 caruur waxaa la hirgeliyay 2 mishiin oo kaliya sifeeya oo kala yaala gobolada Maroodijeex Awdal iyo Togdheer gawaarida ambulansiyada ah ee maanta dalka yaala waa 129 17 waxaa hayaan 8 koob iyo 60 soo koray xirfadlayaasha caafimaadka dhakhaatiirtu 17 waxay 117 tuwatirigi waxa weeye 525 way dhakhaatiirtu kalkaalisooyinka ama neerska ayaa ah 1727 umulisooyinku waa 840 maanta 17 549 baa dhakhaatiirtu waxay kordhay boqolkiiba 79 dalkana way ka muuqataa maanta boqolkiiba 90 dadka dibadda loo qaado intooda badan waxa lagu soo celiyaa xaaladii dhakhaatiirta halkan haday qalin ahayd iyo haday caafimaad kala bahayd sida ay u sheegeen dhakhaatiirteena dalka jooga ee dhalinyarada waliba waxa loo badan yahay Ethiopia marka tagaan markay saa loo baaro qof wax la dhakhtar hebel miyaa hawsha ku qabtay waayo isku kala asbahay kana u tagayaan waana isku oqon badbaado badan iyo dhaawacyada shilalka iyo kuwa kale dhacabana aad iyo aad ayaan u bogaadinayaa bahada caafimaadka oo dhan gaar ahaan dhakhaatiirta da'da yar oo mushahaar yar ku shaqeeya dalkooda oo kasta oo gacanta ku haya biyaha marka laga soo bilaabo labadii dawladda isku kulmiye 2017 ilaa 17 iyo tan maanta ay joogto guud ahaan marka tirada guud loo wada eego waxa loo qoday 208 ceel oo dhaadheer 747 ceel oo gaagaaban 135 dam oo waaweyn 85 barkadood oo qalabka u dhisay meelaha kamida aad u qomanaya dalka waxa la dayactiray 317 ceel magaalada Hargeysa oo imka milyan iyo dheeraad ku nool yahay ama milyan 300 lagu qiyaaso waxay u baahan tahay qofkiiba ugu yaraan maalintii inuu helo 15 litro biyo halka ugu yar qofka bini'aadam ha cabo waxa ku maydho biyaha soo saara maanta waa biyo ku filan ama dhadhaweynaya magaalada ilaa 1 milyan biyuhuna waa qaali sababta qaar u yahay waxa jirta magaalada inta la eeg burco dooraba laguma waraabin kara ceel la qodo oo ceel dheera oo mishiin la saaro oo electric ku socda oo dayactir u baahan laguma waraabin karo waxa ugu weyn ee lagu waraabin kara magaalooyinka inta la eeg dadku soo ururo waa dhaan waa weyn oo loo qodo waa lagu kaali karaa ceelasha marka dhaanku beeray سيادرتي دورد waxay qaaday inay yareyso ceelasha lacagta ku baxaysa iyo isticmaalkooda in shirkad laga qodo dalka meel walba gobolada oo dhan ka waxa loo qorsheeyay in loo qodo meelaha magaalooyinka waaweyn dhammaan waaweyn oo ka fayn kara 500 kun sanadkii
وحوينا معها وحنا مسكحنا اللي قبل يا واقاري يا لسه كره يا قبل كره أفر أمشان ريق عيرك أي قضيان إيه أن له بين العقد جلسة أي كو قضية دام كو ورابية سنة كيس أفر بقولكم شن بقولكم مركز سادرتين مقالة هرجيسات بيسلسل كذا جيد دبل أو أهم مركز خراء 6 مليون لتر وأذير شال صاروخ قيد روح مقالة مقالة هذا واحد شو صار تعبانتي وكانت بيو جيد دبل 8 مليون شن بقولكم لتر مركز يسوق قيبيو فبيشن كهرجيسات marka la isu qaybiyo 1 milyan iyo 200 oo dadka Hargeysa gara 15 litir buu qofka helay laakiin waxa qiimo adag keenay oo muddo dheer qaatay lacagtii kharashkii qasabadaha iyo dhaamamka Hargeysa waa meel juqraaf kale adag ma sinna markay biyo soo baxaan saddex geedebla waxay ka hooseysaa Hargeysa 200 mitir waxaana u jirtaa biyaalka laga soo raashay 20 kilomitir mishiinka soo garaacaya biyaha iyo dhuumaha ay soo marayaan markay soo gaarsay Hargeysa darafkeeda waqooyi haddana 120 mitir oo kale waa inaad dhinaca kale Hargeysa geysaa masala buurta idaacadda ugu dhan markaad joogto markaad doonayso inaad xaafadaha masalaha airport dushiisa geyso 120 mitir oo kale waa qaada inta halka laga darayo waa 16 kilomitir halka geeysa waxaan loo baahan yahay kaydka hawada weerarada qaadada lacagtaas soo gaaraysa marka la soo ururiyo hadii si wacan loo maamuro ilaa 60 milyan oo dollar haddaynu dalahaan isu kalsoonahay bilban ku iska rahan 3 kilomitir lacagteena kaydsan ee baanan ku jirta la ilaaliyo deetana qofku kala soo bixi lahaa biyaha lacagtooda 20 sano 10 sano birtu kala soo bixi laakiin wari isfahamkiis sida ahaa dadkana uu ka maqay marka waxa la bariyaa hay'ad kale oo mid Jarmal tahay ku keenaysa qalab Jarmal oo mid haday doonto tahay Ingiriis oo qalab Ingiriis ku keenaysa iyo isgoogaysan 6 sano laga qaadatay in biyaha la soo gaarsiiyo Hargeysa darafyada kale waxa ilaahay mahadiya maanta 90% inay hawshaasina dhamaatay dhibaato kasta ee jidka kasta magaalooyinka oo dhan waxay u baahan yihiin tacabka biyaha marka laga reebo magaalooyinka biyaha lagu hubo haysta waa Burco iyo Cergaabo inta kale waa wada oo mane ee dalku oo u baahan biyo dalka la gaarsiiyo biyoga meelaha ugu biyo badan ee caalamka la jaabiyay waxa ugu biyo badan meesha la bak waa buura ku xirsan kuwa soo biyaha laakiin bak si aad biyaha uga soo saarto oo booraba u keento waxay ka hor baantahay inta Hargeysa qaadaysa leeg inta meel kale u gudbin waayo buura dhaadheer 300 mitir baad saaraysaa haddii aad ka soo laadayso saadarteed waxaynu xoog saaray in dhaamam biyaha magaalooyinka loo dhiso waa loo dhisay gobolada waaweyn oo dhan dhaamta gobolada waaweyn 12 gobol ama ha yaraadaan badankooda waa loo dhisay kuwa aan xeebta ahayn way xeebta waxay baahatay si gaar ah ciideed dhaamka markaad ka dhiso marka biyaha Hargeysa halka maraya maanta waxaan joognaa milyan iyo 5 mitir dhismihii baa ka yaa ku sugayay waa in iyagana loogu tala galaa biyo xoog oo dhan hadda Hargeysa waxa laga dhisayaa dhaamka Soomaaliland guud ay hogaaminayso wakaaladda biyaha iyo wasaaradda biyuhu dhaamkaasi dhererkiisu waa 600 mitir sidaa hoosna waa u 10 mitir balaca kalena waa u 15 mitir inta biyo fadhiisanayaan dhaqaalihiisa intiisii badeed 100% u maraya waxa uu haray waa ilaa 80% meelaha ka yar dhaamka 100% bilowgiisii lacagta lagu bilaabay waxa bixiyay nin Soomaaliyeed oo baac mushtara oo wali magacayga la sheegay 500 milyan
lacagta ku baxday imika oo laga yaabo inay gaadho 2 milyan iyo xogay inta uu bixiyay booye inta kale miisaaniyadda dawladda iyo cashuur sare ka qaado ama biyuhu ay ka qaadeen juulo cid kasta baad ka qaaday ayaa lagu bixiyay waxa ka dhiman dadka ugu dhismaha badan ee biyaha isticmaalkooda ugu badan dawladda waaweyn ganacsadihina inay qaybtooda ka qaataan horta way ka qaadeen in kuwa soo socda waxaan ku faraxsanahay dhammaan ganacsatada Hargeysa ee ama hudheel weyn leh ama dhismale ama shirkadaha waaweyn dhammaantood qof waliba lagu ku tago uu soo eegay mashruucaasi intuu leeyahay waxaan u noqonayaa tusaale wanaagsan ganacsatada qaarkeedna ballanqaad baa ka haya inta in la yaray ka dhisaan meesha airport ka dambeysay loo jiray maxay ahaydeen lacagta bariga horena inta aan kala dhisay salax loo ray halka meelay xawaale biyadii isku yimaadaan ayaa ganacsatada kale hindisa inay ka kula ka dhisaan labada hadii la hayo saarkiisa 20 sano socday biyaha haysata wax lagu garanayo كما هو ضمان إن شاء الله. عملاء نك السوف ولا وين شوف ما كهو بدن عملاء هالك جالس سينا إلى هيا كابال ما هنا إسكا ما رأيه لكن وحي ولا هذا الفهم ومرك وراء وزارة ده أي كسوق قاعد هالك الوين ما ترى وزارة ده هو وين كمية cimilada dhibaatadeeda iyo waxa laga baxayo iyo soo loo hamaarjiray intaba waxay u leedahay aqoon dheeraad oo aad iyo aad ay ugu dhaxal uga tagaysa wasaaradda marka waa tarjanayo maalmo tiraa bal hadda intaan ku ribaan ku dhahay inta ay runtii dhaaf halka ay yar dhaafay waxa علم بارس لو سمي قيقان هودا غلا ee kuleelka keenay ee ceedeena ku soo dhahay marka la eego gobolkan Afrika geeskan Afrika oo dhan ee la qiyaaso qiiqa adduunyada kuleelka keenay maxaynu ka qabnaa gobolkeena waxa la soo saaray inay tahay boqolkiiba 0.003% qaaca ka baxay gobolkeena oo dhan inta yahay laakiin dhibaatada in uu gaarsiiyay qaacas gobolkeena aanu deganahay wuxuu noqday boqolkiiba 9 dhibaatadu kana inaga nagu dhacday waana cadaalad darro adduunka ka jirta marka waxaynu haystaa dhibaato aynaan inagu waxba ku darsan oo haddana inuu soo noqday culeyskeeda sidaa daraaddeed waxa yaraaday biyihii waxa yaraaday baadkii inaguna waxaan ahay xoolo dhaqato magaca geeska Afrika badankiisuba waa xoolo dhaqato marka xoolo dhaqatadii baadna ma hayaan biyana ma hayaan xoolaha waa dhamaanaya way si yaraanayaan sanadu idin baa garaysa noor wuxuu aqleystay intaas oo xoolaadii reerkoodu leeyahay ama aabihi ama adeerkii laakiin maanta ay soo ururtay soo yaraanayaan marka dadku waxay isugu yimid magaaladii dee abaar kala taala warshado marihi meelo mashruuc weyn oo shaqo tagaan dadkii male waa la isugu yimid magaaladii laba dhibaato abuurmay cimiladu waxay noo keentay miyigii oo baadiyo la isku diyo biyo dadka iyo xoolihii meesha ay mar soo ururayaan deetana waxa ka dhacaya dagaal mar walba waa dhibaato joogto ah waxa loo soo reeb isla khilaafka mid lamid magaaladii waxa la yiri laba walaala ah ka waxaya iyo ka cayd faramaran waligood ma heshiiyaan kan faramaran ee faqirka wuxuu eegaa inta maalmood uu qaday iyo inta habeen uu qaday isagay aragtiisa kan walaalaya xoolaha ayaana waxa eegaa inta goor uu xidhiidhay ama uu xisiyay deetana waligood soo fahmaa magaalada baa leeyahay qayb baa dee nolol wanaagsan ku jirta intii badnayd ee miya ka timid meel dagaal ma hayaan oo barorkaan baalaha isku dagay kaana cawal baalaha ku dagay ka haye shaqana ma hayaan xooliina ka yimaadeen waana joogaan magaalo walba oo geeska Afrika waa la qabtaa inaguna dalkeenu waa kuwa ugu sii hawsha badan arrintaas magaalo walba waxa lagu leeyahay waxa garab dhisan intaasoo kaam oo IDB waxa lagu sheegay barakacaya dee dadku saa ku wada noqon kara maayo maxaa badanaya khilaafkii dadka dembiyada adeegaan loo qaban karay waxaa la gelayaa dee xaalad
lagaga bixi karo un caqli badan iyo in arrintu say tahay loo darso daraasadaana inta badan wasaaradda deegaanku waxay ka samaysay daraasado fara badan xataa haddii la eego inta khilaafka dhaca boqolkiiba 70 waxay ka dhacaan waa faqriga ama waa reer miyi biyey baa isku laayay ama waa magaalo isku haysata shaqalaan iyo gaajo maxaa badanay marka dhaca tuugada buuqa bariisku hal yahay wada aragteen way ordayaan ilaa waa bari halkaas oo way ordayaan inta marka mashkalada cimiladu loo keentayna waxaan uga baahanahay ka hortagga ugu horeeya waa maxay horta waynu fahamno waxa soo kordhay laba in badan bay dawladdu sharci ka samaysay arrinta deegaan xeerar badan oo baarlamaanka baaskareeyay baa yaala oo iyaga laftooda laakiin mararka qaar aad u adkaada waa iyadu rufti baa xoog u koraysa xawli laba waxaan u baahanay markaynu taa fahamno maxaa u dawo ugu horeeya waxa dawo ugu horeeya horta dhir beero marka hore qof iyo geed hal hays baa jira wasaaradda arrimaha dibadda geed beer waa rajabel qof walba inuu geed beer kale haddaynu nahay 4 milyan Soomaaliya sanadka lagu sheego oo carruurta mooyaan 2 milyan dadka waaweyn nin waliba geed ku tuntusan noloshiisa boqolkiiba waxa laga yaabaa inaynu 10 20 30 iska yarayno kuleelkii dhibaatada jirta ka kale waxa weeye in biyaha roobka si loo qaban karo loo qabto ta saddexaad waxa weeye in dhaqaalaha dalkeedu laga maalgeliyo ka hortagga dhibaatooyinka ay cimiladu keento iyadoo faahfaahsan way ku taala amniga iyo nabadda waxa la filayaa caalamka 1990 markuu ruushku burburay ee dalka awoodiisa ku urursay gacanta reer galbeedka inay adduunku nabad iyo horumar iyo barwaaqo gaari doono waayo shuuciyadii iyo dictatoriyada laga tagay dadka hore dimuqraadiyadda u guureen qolada reer galbeedku way nagu hogaamisay laakiin waxa noqotay ka daro dibida marka la soo qiyaaso 91 ilaa maanta waa dhowr sanadood iyo dhowr sano ka horreeyay adduunka marka la soo qiyaaso inta fadqalaya dagaal ka dhacday saddex goor ku soo laamaysa sanadahan dambe ee meel gudaha adduunka looga taliya waxa burburay dagaalo cusub oo ka mid tahay waxa la yiraahdo identity war ama is sheegasho waad maqlaysaan meel kasta laba dawlad baa meel iska haysto wuxuu leeyahay qoladii halka degan dadkayga halka degan afrikana iyo qarsiga maro waa qolo iyo bulsho isku diraysa meel walba Soomaalidu waa la qabtaa inaguna waa la qabnaa waxa taa dheer soo baxay dagaal diimeed oo arkaysan dadkii islaamka ahaa baa istilaayay nin masaajid koriya la dilayaa leeyahay waa argixis waa uu kufri oo nin baa kala gaaleynaya ku kala oranaya kaas wuxuu galay jimceedaas isna uu gaaleynaya dagaalada uu culus waa dagaal diimeed oo dhibaatada waxa kale oo soo kordhay burcad badeed oo u badan mandaqada weyn geeska Afrika mar haddii adduunka hore wuxuu soo gooshay waa maraakiib ganacsi inaguna waxaanu alla maraykanka hormaala ugu muhiimsanaa adduunka te wax ka dilaacay burcad waad ogtiin inta goor qiimaha cuntada iyo alaabteedina ay korayso markii ay burcaddu sii kortaba inagana waxa lagu sii kordhaya faqriga dawladaha geeska dibadda iyo kuwa wadaaga badan casku xagga ka xigay iyo ku xagga soo xigay dagaalada saamintooda inaga u yeeshay siyaalo badan oo hase yeeshee waxay ilaahay mahadiya shacbiga Soomaaliland iyada oo iskaashanaya ciidamada kala duwan iyo shacbigeeda dalkooda wax walba oo hore dalkooda jecel inuu ka badbaadnay burcad badeed iyo argagixiso hal fal oo qura ka dhacay dalkeena mar taariikhda 2008 markii la qarxiyay istixmaalada Hargeysa kamid ah ay ka mid tahay madaxtooyada inta kale la geliyay ku jirta xilka sano waana wax ilaahay lagu mahadiyaa mar haddii aynu amniga ka shaqeynayno amnigu wuxuu ku imanayaa inuu helo deganaansho siyaasadeed hadday dadku siyaasiyaan ama qabaniyaan ama diiniyan isu khilaafaan dee quraanku in badan buu sheegay khilaafku wuxuu leeyahay watadhab riixukum ayaa ilaahay sharafta idinka tagaysa markaas khilaafta waana wax barat kale loo soo joogay waxaan ku kacnay inaynu qaadano oo dastuurkeenu jireeyay siyaasadda furan ee dimuqraadiyadda ah ee tartanka axsaabta
sida aynu sheegnayna waaba laynuguma jirtaa inna waa ku faannaa inaynu 3 madaxweyne iyo 3 golo deegaan iyo 2 wakiilada ah doorasho ku keenay hal qof iyo hal cod oo nabad ku kala wareegay ilaahay nabadda ha inoogu sii wada waana talo wanaagsan oo hore soo dhaafay 17 doorashadii dhacday halkaa wax cusub ka yimid labada axsaabtii tartamaysay kii ugu horeeyay axsaabtii tartamaysay 17 kii ku xigay wuxuu dheeraa 80 kun cod hase yeeshee xisbiga labaad ee kaalinta labaad galay tartankaasi inuu aqbalay natiijada si fiican ugu qancin waxaana ka muuqata 7 sano ka dambeeyay talaabooyinkiisa waayo waxa uu bilaabay muran iyo sawaxan iyo bulaan raadin taban ku yeeranaya deganaanshaha dalka iyo siyaasadda ku socota bulaanka iyo sawaxanka iyo khilaafka badan ee ka socday xisbiga labaad oo tabanaya ama hibanaya doorashadii waxa uu keenay in cadawga Soomaalilandna uu soo hanqal taago oo isu soo bahaysto inuu qaranimada Soomaaliland waxyeeleeyo tusaale qura soo qaadanaya iyadoo oo qaran difaac ugu jiro qaranimada guud oo meelo badan ay naga ducaynayo cadawga naga ducaynayo ayaa waxa dhacday shirqoolkii qaranka loo galay bishii August 12 boortaanka Cannibah ee lagu laayay ciidamada qaranka ee booliska hariya dalka soo jeedintooda oo hore nabadgelyo shilka dhacay mashruucaasi wuxuu ahaa xaalad ugub ku ah geedi socodka nololeed ee qaranka Soomaaliland waxaan ku soo koobaynaa ka baxaynaa shir uu dhacaa khalado ka dhacay gudihii in dagarqabayaala magaca kuliyaala oo kooxdan way samayn kartaa waxaan ku dadaalnaa qaran ahaan inaga go'aana in gacan kuliyaashiina hor keena cadaaladda oo aan shirkaas meel kale inoogu shirka guriyada ka dhacay aanu meel ballaaran oo kale iyo siyaabo kale aan loo macayn cid baa dambira cid baa qaladka dib ka gashay cid baa wax ka hor keenay haddii ay saahan wado wuxuu noqonayaa xanuun inagu yaala oo ah in soo daweyno inagu dheeraado marka taas dhacday oo difaaci iyo taa dadku aad u argixay oo la yaabay war waxaan dhacay muxuu ahaa koox ka mid ah madaxda Soomaaliland ayaa waxay soo jeediyeen in la qabto doorasho isku sidkan waa xisaabta iyo roobagala xukuumadda Soomaaliland ee kulmiye hadda tabada haysa marka ay arrinta dhan walba ka eegtay markay daraasad samaysay waxay aqbashay in difaaca qaranka iyadoo lagu jiro oo waxba laga dhimayn haddana loo taabashayo in doorashada isku sidkan ee la soo jeediyo waqtigeedii lagu qabto shaqada labada arrimood oo midowba culeyskeeda dhaqaale iyo nabadgelyo leedahay iyo ta bulshada dadku badankiisu soo dhaway waliba axsaabta mucaaradka aad bay soo dhaway hawsheeda dowladda iyo xukuumaddu waxay ka saarnaa way gashay qorshihii waa la dejiyey waa la doortay guddi doorashada ee hawshaa hogaamin lahayd wixii dhaqaale loo helay dowladdu way diyaarisay waana dhaqaale runtii aad iyo aad inoogu culus doorashada maanta aynu qabanaynaa miisaaniyadda ay ugu soo qorsheeyeen guddiga doorashadu 18 milyan oo dollar waxaa dheer 2 milyan oo security ciidamada ammaanka ee nabadgelyada ee hawsha galayo ay qaadeen ku baxaysa 60 milyan si kastaba ha u dhacdo doorashada waan qaadan laakiin waxa dhibaato oo aynu doonaynaa inaynu xal u helo wada jiraan miisaaniyadda intaa leh marka la eego dowladaha dimuqraadiyadda ku dhaqma ee aasaasay ee Yurub oo dhan iyo Mareykanka iyo inta badan dhaqaale leh
waxaa laga yaabaa marka la isu qaybiyo muwaadiniinta codaynaysa iyo lacagta ku baxaya inay qofku ka soo beeganto $1 ilaa $3 teena marka la isu qaybiyo labadan waxa inuu soo baxaya qofkii $15 $15,000 milyan iyo 200 iyo waxba iska diiwaan galiyay haddii 20 milyan loo qaybiyo iyada loo qoondeeyay intaas waa inta ay maamulayso guddiga doorashooyinku ee ku baxaya qalabka iyo alaabta iyo shaqaalaha qaadanaya iyo gaadiidka iyo ciidamada 2 milyan dheeraadka qaadanaya intaa waxa dheer oo ognahay lacagta ku baxaysa buuq bulaag qaadka maxaan ku rahdaa balan maxay calaamadaha oo malaayiin inta ka badan oo ka baxaysa dadka doorashada qaran ahaan waxaynu u baahannahay inaan taayno laba doorashada meelkasta joogta lagama waayo xanafteedina waana dhib la doortay oo meel dhaanta la waayay in sharciyo ku bal isbedelo kuwii kana baa arkaysaa Mareykanka iyo Ingiriiska waa arkaysaa muddo san gudaha malaa 6 barnaamij la isbedelay Ingiriiska waa arkaysaa laba oday ka waa isku yihiin maxkamad iska marayaan marka inagu institutionska dawladda adag inta wadsanayno ee baasha hogaaminaya ee kii qadaba maxkamadda keenaya waxaynu u baahanahay in aqliyadii aynu ku shaqeynayno hore aynu ku hore ku keenay la keeno dulqaad adkaysi is-aaminaad iyo runta oo lagu dhaqmo ee aanu qofku keligii isu bogin oo oran tahay uma sax aynu u baahanahay doorashada ka dhacda sida u dhaqanka dawladda xukuumadda kala dambeeya kulmiye xukuumadda kulmiye loo baqaayo waxyaalaha aanay dhaqanka u lahayn ee ayagu ka soo dagaalameen ee ay dad hortu ka diideen waxa nool oo imka maamulka haya oo xukunka haya kulmiye waxa weeye dadkii ka dagaalamay gardaradii iyo xadgudubkii iyo digtatoradii maxamed siyaad barre oo la toogay looga biqi maayo fikriya inay aaminaan wixii ay 20 sano ka dagaalamayeen ay naf iyo maal u horeen ay dadka ay ku dagaalgeliyeen inay iyagu dib u qaataan intii hawshaa soo martay macquul maaha in looga baqo waxa kale oo aan looga baqaynin in ay qaranimada Soomaaliya jiritaankeeda iyo hirgelinteeda ninna ka dhageystaan dawladda waa habradaan dan kale ka raacana waa inaanay jirin qofka soo maray halkankii dalka u dhintay oo looga baqo marka xaaladda maanta aynu ku jirno waxaynu u baahannahay in danta guud ee qaranimada la wada eego siyaasi sheekh dumar rag professor iyo bulshada inteeda kale danta guud in la dhowro oo aanay ka hormarin taaduu doonaysa sida rag badan yeelo midna waa loo sheegayaa min sharci ka weyn jiro madaxweynaha adduunka ugu xoog weyn waa Trump maanta maxkamaddu saaray oo lagu qaado marka waa inuu inaga oo dad aan badnayn oo aan aqoonsi haysan oo inta soo dhisanay maaha inuu dan shakhsi ama urur ama koox ay burburiso qarannimadu waa inuu nacsiyo amniga waxaynu u gudbaynaa hay'adaha amniga waxay ka kooban yihiin ciidamada qaabilsan hawsha oo fara badan badda beriga booliska intelligence-ka sirdoonka iyo inta kale iyo shacabka inuu isku duubin amniga ilaalin karaa intiina soo iskaashato hawsha u badan waxa laga rabaa in ay leeyaan xisbiyada qaranka iyo ururada maaha inay dadka balaayo u horseedaan iyo khilaaf waa inay waxna doonaan ra'yigana ku dhisaan hadduu xisbi yahay ra'yigiisa maxaan anigu dalka u qabanaya wadadaasaan hayaa waxaasaan kurinaya laakiin waa inaan noqonin ama ku ciiday ama ku cunay taas Soomaaliland ka meelgeeso hore u diiday shacabkuna taa maqli maayo
shalay waxaan maqlaayay oday guurtidii hore ee shirkii burco joogay oo ariiro ah oo idaacadda ka hadlayay seerida lagu wareysanayay wuxuu soo horreysiyey xisbiyadu xaq noqon laha dhiigga iyo shuba iyo kaalaya dagaalama waxay nagu leeyihin cudub taasaynu qaadanay iyo cudub xisbiyadu wax kala maaha marka ciidamadu markay hawshaa soo qabtaan ee qofka dambiilaha qabtaan ee dembiga qabtaan waxay u gudubtaa xeeraalinta iyo bahda garsoorka xeeraalintuna kiiskiibuu caddeeyaa ninka qofkaa la soo qabtay inaan la dulmin ee waxa uu galay marag markhaati sida ugu adag ayay u galaan in dadka dembigala la eedeeyo dabeetana maxkamadda la geeya haddaba shilalka ka dhacay dalka afar iyo toban sano waa 114 oo dembi inta soo martay maxkamadaha ee xeeraalintu badankooda waxaa lagu xaliyey si sulux ama dembi fudud buu noqday oo laga heshiiyey waxay maxkamadu xukumeen oo soo gaaray in ka badan 100 kursi ma la hayo tirada kooban kursiga waayo inta badan waa la qarsadaa laakiin waxa waara inuu aad iyo aad u sareeyo kursiga si uu soo kordhayo mar walba waxa ka dhacay 7 sano dambe dalka 469 bil oo boqolkiiba 95 la qabtay gacan ku dhiilayaashii maxkamadan loo gudbiyey waxa ay maxkamaduhu xaliyay waxa ka dhacay dalka 7 sano dambeeyay 6536 shil gaadiid ah inkastoo ay u badnaayeen shilal khafiif ah haddana way ku badan yihiin dalkeena marka loo eego tamarta gaadiidka jooga yaridiisa iyo dhibaatooyin ka dhacaya iyo khasaare ay keenaan dad iyo naf iyo maal iyo dhismo maxkamaduhu waxay fuliyeen inta badan 89% oo ay xukumeen oo dadkii u garqaadeen dembiyaasha horaan soo sheegay tirada ee soo martay maxkamadaha soo gaadhay 2% ama 2 to 3% ayaa u yaalla maxkamadaha guud ahaan dalka oo dembiga soo gaadhay ee maxkamaddu soo ogtay xeeraayo soo ogay gacantooda ku hada waxa kaloo ilaahay mahadiya ciidamada amniga inay gacan dambiilayaasha ama waxa dilay ama waxa dhacay ama waxa ku saar inay 85% gacanta ku soo dhigaan inta badan waliba kuwa dilalka 90% ma soo qabtaan ciidamadu markay isugu tagaan waxa la qaban lahayaa ee la qarsanaya ee dambi weyna waa kufsiga malaha dhowr jeer saddex jeer oo horaarkan mid aad baan uga hadlay golayaal culimo caaqil cid kasta oo dadku dhegeysanayo dee horta seen muxuu noqonayaa xagga diinta marka la eego markaynu jariimad gurigeenna iyo dadkeena ku dhacaysa qarsano dembi inanta la kusanaya waa intaada dhammaanteed intayna halkan fadhiya da-daa weliba waabada hablaheena ka kufsanaya darasanayo inankeena marka haddaynu idhaahno inankii dembi ma laho qofkan uu dilay waxba laga soo qaadi maayo dee dembiga inu taqaana haddaynu ummadda nahay markaa lama qaban kari waayo oo lagama gaari waaye arrintan halkay ka dhaqaaqi leedahay ee kala bar ama inta badan loo qarinaayo haddii la keenana sheekha iyo caaqilka iyo suudaanka ugu weyn imanaya siyaasiga maxkamadda tagaya ee leey waa la heshiisiinaya kii u dambeeyey weyga dhexdiisa 10 inan oo wada ina habana ayaa gabadhu ku sameeyay salaada lagu dhigay masaajidda ka buuxna soo soconaysa waa qareen waa shaqeeyay arrintaas waa arrin culays badan ugu haysa horna in badan baan uga hadalnay dee hablaheenu haddaynu mar wada ammaano waxaa leeyahay xagga la tiriyo oo dhan waxaa hees saacad ka baxda hablaha ammaanaya waxaanu ku ammaanay haddana waxba ugu ogolin marka runta sheegay haddana ragana tacliinta maanta jaamacadaha sheekh iyo camuud hargeysa iyagaa hogaaminaya jaamacadda hargeysa iyagaa boqolkiiba 50 hablaha imika sanadka soo galay ragga hoos maray inay 250 baa maranaya boqolkiiba labadii sano dambeeyay imtixaanada inta badan kuwa midhaliska qaata ugu horeeya waa habay marka shaqada la isku yimaadana dhammaantood waxa leenahay haddii dhaqaalaha hablaha loo dhiibo caafimaadka hablaha loo dhiibo iyagaa sidana nin waliba marka hortagana ammaan baynu kala daalnaa haddana ma ogolin hablahaasi inay dalka hoggaankiisa qayb ka noqdaan
marka wax la dooranayo waa inan dee markaa dadku wuxuu ka kooban yahay dalku waxaan ka koobanahay lab iyo dhadig ilaahay baa lana u abuuray been lagu yidhi labku qaybtii kale oo waliba iminka inaga badan bawlasha ha way naga badan duur dalkeena marka la eego waa 50% intaasaynu cagta ku haynaa dhowr iyo soddon hablood baa laga sharaxay anagu xukuumadda waa la dadaal waxaa la wixii lacag la doonay waa bixin ama ha ka doonayo ha shubay lacagtii ka doonay guddiga doorashooyinku kuwa xisbiyadu way ka dhaafeen sida xisbiyada guddoomiyaashada ka dhaafeen wixii kharash laga doonayay dhan waan u fududayn xisbiyada waan kula dadaalay way yimaadeen oo way dadaaleen dee markaan ku taagno inteena waaweyn ee ciradani malaa qolada inaga yarna dambaysaa waxbay ka ogolaan doonaane waxba ayna haystaan in nala dumarku haddii xag hore soo yimaadaan banaha waxba nagu dhacaaye ee dumarka inaga hayada oon ka simano markaan runta sheegayno wixii cirad iyo bidaar lahow dee adeeda koow ka dhaho sibaynu nahay taasina socon maysa caalamka maanta adduunka hadday iyaga tacliintii u bateen way soo socdaan jaamacadihii aqoontii tu kalaa ku jirto oday walba wuxuu idhahdaa markaad weynaato wiilkaagu kaa tegay islaanta iyo inantaadu baa fidar yeelay marka waxaan leeyahay arrintaa hablaha waa inaynu ka madaysanaano aniga waxaa lagu canaantaa madaxweyne kasta lagu canaantaa maxaad ugu soo badin weyday xukuumadda maxaad wasiir ogani weyday gabdhaha qaar halkan soo maray oo kuwa ugu karsi badna ahaa oo xukuumadda ku jiray oo ugu codkarsanaa waxay noqotay deegaankii ay ka soo baxday dowladdu cabashadii ugu weyneed anaa gabadh noo talmayso khasa baa laga dhigayaa madaxweyne kasta in laga dhigayo maxaan ku qosla war wada arrintaasi kursigu arrin waxaa u baahan in mar aynu oran qaadno oo nabadgelin habeen dayna wax kala u tarin doorashooyinka intoodii dhaqaalaha ku hormariyay oo wax badan ku raagi maayo wuxuuna ku soo gabagabaynayaa arrinta doorashooyinka nabadgeliyo iyo xanaf la'aan iyo danta guud ee ilaalinta doorashada ku gaar inta waxay ku qoran tahay baad ugaaqdaa dheer laakiin waxaan ku soo koobayaa hadalka maxaa ku nafa naftu waxa weeye maanta xaaladaynu ku jirno ee cimilada leh ee abaar leh ee dhaqaale yari leh ee cadow leh uma baahnin doorashadu inay fidmo iyo khalkhal inoo horseedo waxaan u baahnay nabadka codeyn kii helaa loogu duceeyo kulmiya haddaan ahay oo anugu murashaxooda aan ahay meelo badanna waan ka sheegay marka tiradaa laga helo halkaasaan ku baxayna edeb la'aan weli waa hambaryana hadal koorifkaale ku wada heshaa soo maha ninka cadhaysan waxaan leeyahay adna kuu socon maysa waddadaas ma lagu dhaqmaya ninna odhan maayo tayda hala yeelo iskeejin maayo ku dheeraan maayo isafgaradka Ethiopia iyo Somaliland soo dhex galay ay ku heshiiyeen waxay ka anigu aan ka yidhi ereygii aan ku furay maalintii Addis Ababa aan ninkaas soo fiirsanay waad garan kartaa miisaanka ay leedahay waa la filayo wax ragga qaarkii ku kacay inay iman doonaan hal erey un bay ku dhantahado madaxweyne dad aaminay oo ay doorteen oo kalsoonida siiyeen hawshii u dareen waa ay siday ahayd uu ugu dadaalaa oo la odhanay waxaad harratay guushuna ilaahay ku xidhantay calaya an ascaa walaysa calaya idraaku rijaa waa inaad dadaashaa laga rabaa bini aadam baatay boqol hawlood baad hawlgelaysaa arrintaa furitaankeedu wuxuu ahaa madaxweyne waliba wuxuu ka taliyaa danta dalkiisa maantana waxaa leeyahay dalka danta Somaliland ayay kow ka tahay haddaynu dowlad isu dhowaanayno oo aynu wax wada gelayno inaynu dowladda ka heshiisnahay mabaadi cadcad oo la isla ogyahay ama isku af ahaada dowladda oo afka wadaaga ama diin wadaaga
ama dhulkiinoo isku dhow wadaaga waxaa muhiima in dowladda aad wax wada gelaysaan uu idinka dhexeeyo horta marka hore sinaan arrintaa aad gelaysaan inaad u simantihiin ee aanay ahayn midkiina hooseeyo midkiina sarreeyo oon doodi karin taasi Soomaaliland heshiis caynkaasoo waa ka xaaraan horena umay gelin sidii loo gelin ka labaad waxa weeye in wax ixtiraam iyo qadarin la yidhaahdo loo sameeyey ee barsoorka loo hadlayo marka la gorgortamayo nin walba diintiisa ka hadlaya nin waliba waa halka aanu dhaafi karin kale waa inuu sheego saddexdaa mabda ciddii laga helaba hadal waa la gelayna ciddii laga waayana isma naqaan marka saddexdaa qodob inuu ka duulana waxay noqotay adiga maxaa kuu daran iyo aniga maxaa ii daran Ethiopia badda madow ayaa u daran danaheeda dhaqaale iyo marka eegto inay meel ka karaysato inagana waxa inoogu culus oo maanta inaynu aqoonsi helo oo in badan soo dagaalamay inaynu baddaanu ku karayno iyaguna aqoonsiga koodana ay keenaan kuwa kale inala dagaal galaan ayaynu inagana iyaa ka rabno wixii intaa ka sokeeya waa gorgorta taasaan u baahanay taayga yare taa kordhi taa halkaa kala qabo wadaadiida MOU intaas ku filan heshiiskiina wuxuu ka kooban yahay in laga baargareeyo mid walba inteed keenaysaa intaasaa dhiman iyaduna iminka ma dhowdahay waxaanan ku rajo weynahay in dhowaan la saxiixi doono inagoo ku heshiisa arrintaa laba erey oo dowladda xamar ku hadasho tilaabada Soomaalida baa la boobaya iyo dhulka iyaga la qaybin maayo halkaa ereygaasi waa erey malaha aan meeshiisa haysan Soomaaliland iyo Soomaaliya waa laba kala dan kolka hore xuduud isticmaalku way qaybiyeen Afrikana iyada ku fadhida marka labaadna nin waliba ilaahay halkii uu dhigay uu yaala marka meel aanad shaqo ku lahayn sinaba aanad iman karin dhulkayga baan ilaalinaya waa arrin gardarra oo lagu gaar xabsanayo dowladaha waaweyn ee ajaanibka qaranka sakay arrimaha dibadda horta siyaasadda arrimaha dibadda sidaynu inoo mabda'aynu ku meel qaadno waxay ku dhisan tahay nin isagu nabadda diida oo faraha inala soo gala oo gardarra inagu soo doonta mooyaane inaynu qof walba oo caalamka ah qof wal oo caalamka ah aynu kula noolaano is-ixtiraam deris wanaag iyo wada qabsi kii aynu kala fognahayna sidaas si leeg aynu la dhaqanno labada qof iskaashanayaana waa inay hadaan laba isqadarin oo siman marka waa hadaya oo aynaan midna ka yeelin inuu hoos ku eego laba waxa inoo mabda ah oo dastuurkeenu qoraya waxaynu nahay dalka keliya ee dastuurkiisa ay ku qoran tahay la dagaalanka argagixisada argagixisada waxaanu u qaadanaa qofkii si khaldan ama garbareeda nabadgeeda u khalkhalinaya ee dadka gardarro ku dilaya diiniyan iyo sharci kalaba dhaqan haddaynu labadaa ilaa dastuurkeenu taagan yahay waxaynu ku taaganahay waa siyaasadda dadka dariskeena ninkii iga maarma inaguna waa ka maarma nin waliba dariska intuu ii baahan yahay intuu isagu ii baahan yahay in lagu maan u baahana ma jiro nin aan u baahanahay intuu ii baahan yahay ka badan baan u baahanahay ma jiro taa aan ahayn u yahay haddaba maxaa keenay muranka inta leeg aynu soo afgaran lahay qoladaas Soomaaliya ku hadasha waxaa arrintaa keenay lixdankii markay xorriyaddu socotay Afrika oo dhan ee shanta Soomaaliyeed baa lahayn hal la midoobo ee xisbadii wagaa jiray oo leeynayeen ee dadkuna ku jibaysaan meel joogada labadii horta inaga ugu horxaroona waa ogtiin waa taariikh markaynu ugu horxaroonayna
ما ينام لا تشيسين أو من أرى إنك أحرلا أنت كلام سوكسته waxaynu u joognaa oo waa in shanta soo doonaa koow labadeenan xorriyadda maalmaha soo qaatay waa inaynu nagu u midownaa sidii shanta kale loo keen lahaa halkaa waxaynu ku sadaqayn dawladdeeni in shantu isugu yimaada labadii isu tegay way is eedeen oo way is khilaafeen oo dagaal baa gudahooda ka socday muddo 3 sanadood kolba heer jooga saddexdii kale maxay yeeleen saddexdaa kale Somaliland mid aan la halgamin oo na marti gelin oo aan ka caawin maca koonfur Cabdullaahi Ciise ninkii garab socday ee adduunka la maray Michael Maryamo waa loo ogi dhaqaalay ku baxayna si maanadii reer Somaliland bahay oo magacashooda wahay oo odag Ismaaciil Baar xaraf kamid yahay halganka loo soo garay mid walba ee loogu dhintay maxay noqotay markay Somaliland qoladii ay duntay goorisu taagtay soo sano ka hor maxaa saddexdii caasadood ee soo noqday hadeen Somaliland mid waliba danteeda raacay mid Ethiopia la dhaqantay oo Ethiopia inta soo 284 Afrika hadoo inta soo qoromada ayay wax la wadaagtay la heshiisay inagana waxay leedahay kama maarmi kartaan oo goonisma taagi kartaan mid waxay la heshiisay Kenya oo inta soo qabiilo qurumood inta soo afar oo wax ku darsatay oo la dhex galeen oo saamsan yihiin inagana waxay leeyihiin waad gardantihiin Soomaali ma kana maarmi karto mid wuxuu la dhaqmay afar oo la wadaagay oo isku dhex jiraan oo kala soo ba isku dhex galeen haddana waxay leeyahay Soomaali ma kala goy karto bal waxaynu weydiinaynaa ka afar leeshii iyo ka Ethiopia ka leeshii iyo ka Soomaaliga leeshii waynu heshiinayna ayaan shanta halaad horta soo baxa oo banaatu sayra Soomaaliya ma jeceshiin marka anagu waanu soo aragnay oo waa ku gubanay dabka faraam la galay bal kaala marka shantiina iyo kuwa xamar jooga isu tagtaa ee midowdaan sandullaanu ku imaanayno Soomaali baan waxayna gaaray mar haddaan taasi jirin ka koonfurna wuxuu ii sheegtaa waa gardarro iyo kibir oo isu iman mayno koonfur iyo Soomaaliland dambe warigaan soo iman ummadda Soomaaliland ee maqlaysaana taa way ka midaysantay waayo soddonkii sano ay joogeen wixii Soomaaliland dhaqaale adduunka soo galay laga galay markii rasteer dama lagu sameeyay 1990kii buugu qoray odaygii halkan joogi jiray muxuu ahaa markii dambana muslim ingiriiska raaysta buugu qoray boqolkiiba 4% baa kaga soo hagaagay 30 sano dakhligii soo galay Soomaaliya oo dhan Soomaaliland halka hore waanigii ku yiri halka ku wax ka bilaabay caradii 60kii habeenkii dawladda la soo joogay dawladda la soo 12 wasiir baa xal laga siiyay 3 wasiir تعليمته كاشاندقة iyo beeraha wax midkaysa sidoo ku socotay dagaalka sidoo soo kulmaa marka ilaa gobol maana reer Talyaaniye laba dawladood oo taa isku baro haynay marda saddexdii kalena iyagu dantooda qabsadeen oo qurumaha Soomaaliyeed la heshiiyeen inaguna istilay oo dhiigan isku batay war isu iman mayne ama taa maqan hadii kala inta noolahay meesha qodob way taa marka arrimaha dawladda horna amra ku dhaafo hawlo badan iyo dadaal badan ay dawladda u gashay in aqoonsiga la helo wala socotaan dawladaha Yurub iyo shay waxaan yiraahdaan Afrika wax ka soo bislaysta Afrikeen isugu tagnay xoog badan baynu saaray waa ogtiin waxa ku xigay Kenya Uhuru Kenyatta oo la mid oo inuu ictiraafka Soomaaliya ogol yahay si weyn ugu diyaarahay isaga dawladda soo loo shaqeeyay waa laga yaabaa waqtigiisa Soomaaliya ragaalka joogaan anagoo Nairobi joogno isagana codadka u jaray maalintii aan ka soo tagay waxaan ku yiri Afrika oo dhan baynu ka bisleynaa ictiraafka iyaguna Afrika oo dhan bay xidhiidhka u jarayaan halka tagaan baynu eegaynaa waayo inay halka kuwa nagu waajib inuu aqoonsiga socdaaladii waxa kamid ah dawladda Mareykanka oo si walba ugu sheegnay in aan ahayn gobol goosanaya ee aan lahayn dawlad si voluntary u heshiisay haddana ka baxday marka sharciga horgeysa waa lagu dhageysanayaa haddana
dowladaha waaweyn dana badan bay eegtaan iyaga u gaara lana taada adoo barsada mooyaane ku heli maysid maslaxaad ama wax kala socdo marka waxa kale oo kamid ah qolooyinka aan tagnay imaaraadku inta badan waxaan ka hadlaynaa waa dhaqaale runtiina waa dowladda quraha aynu aad iyo aad ugu mahadnaqayno dhaqaalaha ay geliyeen dekada iyo jidadka Somaliland oo maanta dekada caalamku 106 ka dhigay inteeda badan waxa dhisay dowladda imaaraadka DP World 600 kontrabaist intii horena waxa 600 iyo konton wuxuu iyaga horreeyay 600 kale ka daraya iyo wadadii waa dowladda qura ee lacagta inta laga bariga ku dhow maalgelisay Somaliland iyadoo oo la ixtiraafsan ee u bareeray wixii xasarad iyo hadalka soo gaaray aad iyo aad baan idin ugu mahadnaqaynaa marka اعترافك raadintiisu waxa weyn ka qaatay gudaheeda hadba seena dowladda hadda اعتراف hadduu nin kula mid yahay اعتراف oo siyaasi ah ama baarlamaanka ku jiro ama xisbiga hogaamiye ama nin hore suuqa wax ka sii ahaabaha oo joogo oo magac hore siyaasadda dhigto haddaynu inagu qarannimada isla dhaawacno siyaasadda arrimaha guud way ku adkaanaysaa inagu badna waa si jiraan qaar halowsan oo waxa ka shaqeeya inagu badna haba tira yaraade laakiin waa wax aan qarab qaadan karin aqoonsiga Soomaaliland waxa weyn nafiya ma la hortay in ragga qaarkii uu ka soo jeedsada waa mid aan meesha qaban oo xamar waxa tahay aan soo ururiyo haddaba malaha maanta waxa badnayd dhaliil badan la soo jeediyo oo aynu u baahanahay inaan xalale malaha rag badan bay filayeen inaan faaro tanaan qabtay iyo cirkaas sooreeyaah ninka madaxdina ma aha isagu kii faana imika waxa lagu yahaa waa dowladaha qola inaan isku diinahay isku qaxayn bay noo keenay dhowr wuxuu xagga islaamka iyo dhaqankeeda waa ku qaldan baa la doonayaa in la ilaalisiyo marka hore waxana waa qarada wax la yiraahdo waa old fashion kii baa la waxa aad qoodaysa shaqada waxa qabta sheego maalin dadka ka dhaadhici barnaamijka loo qabanayo horta shaqada madanta iyo dadlaha inuu qabanayna mise ku faaniyo inay dhigeysto qofka mas'uulka ama gole joog ama garsoora ahaw ama ciidan ahaw ka dhimanaya mashruuc kula iga qabto waxaan u qabanaya dalkaaga naftaada u qabanaysa marka ku faan male qof weeru mas'uul wixii loo diray waa shay loo diray laakiin marka waxa soo bacday sheego idaacada u badso TV-ga sheeg tu kala lagu daray ومن كسياسين تيرا يقدر يرى يسوي وضعنا ورمراه ما هكذا هرت أدوق سموتش تمر كذا قفل كذا صوبة تنقل كم هذا سياسي أنا قلت له دوريسه مركات ديدت كأني حوله هو حصامه أنا قفار من التلك ويحيى قصامه أنا ورميت وقبي سيئة هيساب صدق هذا اللي هو صبح حول قال واحد كتر سير هو صبح وحرض هاي الشيء ورا كل بدو كدي حبا كده في مش يوحي كله marka hadii aan wax badan dusha wal maray aan soo ururin maanta wixii gabagabay inoo nafa horta waxa aan sheegnay waxaan i'tiraaf ku helay oo dhibaatooyinka ka baxayna waxa weeye i'tiraaf la aqoonsi waxa aan buuqan oo dhan markaynu qarnimadeenu sugnaa inagoo isu dhan ayaynu wax qabsan karnaa iska celin karnaa maxaan ku qabsan karnaa ilaahay dhaqaale weynaysi dad shiciboo wanaagsan oo xorriyadda iyo dalka difaaciisa rag iyo naf iyo maalba u horena weerareen inteena liidariska ay doorteen ee siyaasadda ilaahay hogaamiye waajibka inaan saarno waxa weeye inaguna inaan si aan turxaan lahayn u tartanno oo qaranka wax u dhibaynin tii qarankana ka midaysanaa oo aan wadar yeelano qodobkaas oo meel ku gaarayna gabagabada ama socdaa waa taa فقرنا سينو كغا بخاينا waxaan kaga baxaynaa xoolahaydu heerada soo sheegnay in sidii ilaahay ugu talagalay ee diintu tiri lacagta kaydsan ee waa inay wareegto sakada maxaa inoo saaray maxaa sakada lagu qasbay maxaa sakada lagu qasbay waa lacag dadka wada gaadho sida ku gaaraysan ninkii lacag waa maalgelin sharci ah ninka guri dhisaya hawl buu furay lacagteedu hay guri ku dhisay ama inta dhisaysa inta soo shaqeynaysa kam malaayiin hayana waa in maalinta mashruuciyo weyn geliyo ka siyaasiga waa isdaacado hogaamiya oo isku dhan ka dhaxeeyo
taasaynu kaga baxayna adduunyaduna way soo martay waxaanu soo marray kuwa laga qaylinaya waa la soo maray oo dowlad inta iyadoo hurdo ama ay taageerto noqotay qani dee lama hayo taariikhdana way sheegaysaa dhaqankeena way ka mid tahay qurumaha laga qayliyey ee qaaq wax kaga siiyey nin waliba mar buu qaaday jiray qaanse iyo leeb qorfa iyo mar bay seexan jireen qalanqal hoosteed ha yeeshee sheekhow qulub wada jirtaa timacda ood garanaysaa ha yeeshee sheekh هي قلوب جرتها شيخ يا قرية شيخو واتم عادي وشان يدحنك وحس بقى على ناس هذا يكون قبيله هي رجل الباقي بتشوف هذا كمله ورجسنا هذا أول مركو كان هذا هي اعترافك حدود ويش أو إنه قصة يدرتها وإمك رجع الصهاري قراش وين قروشيو شيران كهرو gaanka dunida oo dhan jeeraan gaala baxo arlada goodi iyo goodi gaal iyo islaam jarataydu wada gaadho bariga iyo galbeedkaba ilaa la igu gacan qaado guray iyo islow iyo hurrow gabaygu waa beendhe goodlaysan maayo tashiga waan guddoonsaday waxba yaan indhaha laygu gubin gaabsi ma aqaan ugu dambayn shacbiga iyo qaranka Soomaaliland guul baan u sheegay shacbiga Soomaaliland guul baan u jeedinayaa ilaahay tasanahay inuu waafajiyo doorashooyinka nabad ay ugu dhaceen khalkhal iyo khilaafka Allah inaga saaro intiina maanta wada inta badan ay soo wadaagsan yihiin. Wassalaamu calaykum.